kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta waxaan qaadan doonaa match day design cusub ayaynu qaadan doonaa oo kii hore ka duwan. magacaygu waa Abdifataax Maxamuud. channelka daawanaysa Subscribe fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar, like nagu dhiirigeliyo, xifaalada qotina commentiga hoose inoogu reeb. haddii aan isla eegno waxaan qaadanaynaa match day design-ka naga hor muuqda oo aan anigu sameeyey ayaan qaadan doonaa, ku tusi doonaa qaabkaan u sameeyey iyo stepskaan maray. marka hore waxaad tegaysaa file kadib new baad leedahay. marka new tidhaahdo new document soo furato ayaa waxaad la soo baxaysaa file size-kan aad la soo baxaysaa 1200 oo urta iyo 1600 oo hayta. marka ardayda size-ka waxaad ka eeganaysaa marka aan halkan soo gelinay size-ka meel gaar ah ku soo qori maayo ee casharka marka aad daawanayso casharka la soco oo marka hore document kala soo furayo size kala gashanayo waana pixels cabirku. halka waxaan ku qoranayaa match day design 2 ana saxkan match day design 2 ayaan halka ku qoranayaa. kadib waxaan leeyahay create marka la dhahdo size-ka nii soo baxo ayaa waxaan sameynaynaa kono kala sameeyo ayaa waxaan tegayaa file kadib open baan leeyahay. waxaan soo furanayaa ciyaartoyda intaasaan soo furanayaa open marka la dhahdo aan sawirradii sidan soo furto ayaa waxaan tegayaa halka yar baan tegayaa. haddii filekii aad joogtay ay intani kaa buuxsanto line-kan sare waxaad tegaysaa halka yar saas soo furaysaa fileka magaciisa halkaas ka eegaysaa match design day 2 buu ahaa saasaan leeyahay. kadib sawirkan ku xigaan tegayaa kan baan marka horeysa kan iska saaro kan background buu wataa ku bila background ayaan soo gashanayaa. horta kan soo qabo kan baan halkan dhiganayaa. kadib layerskan tegayaa right click baan leeyahay waxaan leeyahay convert into smart object kadib waan yareynayaa halkan ma dhigay. kadib check baan leeyahay waxaan sameynayaa haddana inaan kan iska saaro aan kan ku xiga soo qaato aan halkan keensado aan right click idhaahdo kadib aan convert to smart object idhaahdo. waxay ku xiga sawirkan haddana inaan iska soo xidho aan kan kala tago aan kan soo qaato aan halkan keensado. halkan markaan keensado kana aan right click idhaahdo convert into smart object aan idhaahdo. marka hal sawir baa iga dhiman halkaas sawir baan soo furanayaa. markaan sawirkaas soo furto ayaa waxaan sameynayaa kana inaan halkan keensado sawirradii way soo wada furan yihiin. kadib waxaan sameynayaa inaan kan u hooseysiiyo sawirkan tababaraha aan xagga dambe mariyo isaga aan halkaa dhigo kaa aan isagoo smart object aan soo yareeyo kadib aan halkaa dhigo aan check idhaahdo kadib inaan haddana kan aan soo weyneeyo. markaan saa soo weyneeyo aan check idhaahdo aan kan aan right click idhaahdo kadib convert to smart object aan idhaahdo aan yareeyo isagana xoogaa saa yareeyo saana soo idhaahdo aan saa u dhigo halkaa. kaas xagga dambe iga maray jootana aan xagga hore keensado xagga hore markaan keensado aan yar hoos u yar dhigo aan saa ku daayo markaa kaa. markaan kaa halkaa dhigto waxay hadhay inaan calaamadihii iyo soo furto loogooyinkii kooxahan soo furto. markaa labadii kooxood markaa calaamadihii soo furto marka hore waxaan doonayaa resource-kayga sawirrada oo dhan iyo waxaan wax ku qabanaya inaan document-ka dul keensado hadhowna aan habeynteeda iyo bilaabo inaan design-ka aan aan qurxintiisa bilaabo. right click baan leeyahay convert into smart object baan leeyahay kadib saasaan yareynayaa halkaasaan dhigayaa check baan leeyahay. markaa kan baan iska xidhayaa kan kale intii aan soo qaadanaya halkan baan keensanayaa halkan baan dhiganaya isagana right click baan leeyahay convert into smart object baan leeyahay waan yareynaya halkan baan dhiganaya markaa check baan leeyahay. markaan intaa joogo iminka resource-kayga oo dhan waan haystaa waxay hadhay inaan hawsha qabashadeedii bilaabo. marka haddii aad halkan design-kan eegto saasay isu daba yaalaan sawirradu. xaggan baan tegayaa waxaan sameynayaa inaan kan saa yaro durkiyo kan aan yar saa hoos u soo dhigo aan check idhaahdo kadib aan saa yaro durkiyo saa markaan idhaahdo aan tababaraha in yar saa u yaro weyneeyo aan kor yar qaado. intaa markaan sameeyo kadib waxaan sameynayaa haddaba inaan lead-kan iska baabiyo. kadib waxaan dooranayaa kan waxaan tegayaa brush-kayga waxaan ka dhiganayaa 70% opacity ka dhiganayaa hadda halkaas aad arkayso. waxaanan joogaa soft brush haddii aan saa idhaahdo waxaan joogaa soft round brush. kadib waxaan sameynayaa inaan kan click idhaahdo aan kor idhaahdo kadib aan intaa hoose saa idhaahdo aan lead-ka yar hoose saa uga baabiyo. markaan intaa sameeyo kadib haddana aan kan kala doorto aan brush-kaygii tago click idhaahdo
okay idhaahdo. Setting waa kii hore brushka haddii aad arkayso opacity-gu 70% buu taagan yahay. Markaa kana saasaan yara odhanayaa ilaa uu liidka yar iga qarsoomayo. saa markaan idhaahdo check baan leeyahay. waxaan samaynayaa haddaba inaan kan doorto aan isaga aan tago halkan effects kadib aan tago drop shadow aan tago. drop shadow markaan tago shadow yar buu samaynaya. shadowga markaa waxaa la doonayaa inaad iska saxdo oo aad halkaa distance-ka aad in yar saa yara tiraahdo. intaad halkaa geysato halkaa angle-ka aad ka dhigato 60 oo kale. 60 intaad ka dhigato inaad distance-ka aad saa soo celiso distance-ka oo cagta iyo kubadda oo harku in yar ka yara muuqdo. opacity-gana aad saa soo celiso kan size-kana aad size-ka saa soo celiso kadib aad opacity-ga yar celiso. harku inuu in yar ka yara muuqdo baa saxa. kadib okay baan leeyahay. kaana halkaasaan ku daysanayaa. kadib waxaan samaynayaa inaan kooxahan aan size-kooda isleekaysiisto. tan aan soo qabto aan kadib sidaas soo yareeyo. markaan size-kooda sidaas u leekaysiyo aan check idhaahdo aan labadooda isku select gareeyo kadib aan wada yareeyo ayar. markaan saa wada yareeyo ayaan halkan baan dhiganayaa keligood marka hore. kadib check baan leeyahay. waxaan samaynayaa markaa inaan match d halkan ku qorto. fartaan isticmaalayaana waa tii haddii aad daawatay muuqaalkii faraha aan ku sharaxay aan sheegayay oo ah bebas. markaa match d baan qoranayaa. match d markaan qorto kadib check baan leeyahay. saasaan yareynayaa. check baan leeyahay. marka waxaad jirta waxaad moodaa in aad u yarweyn yahay design-ka sawiradu. markaa saasaan isugu select gareynayaa. saasaan u yareynayaa. markaan saa u yareeyo ayaan check leeyahay. kadib match d-gaan weydiisanayaa fartaan saa yar weydiisanayaa. kadib iyadana check baan leeyahay. markaan intaa ka dhigo ayaa waxaan samaynayaa rectangular yar baan xaggan hoose soo dhiganayaa. markaan saa soo dhigto kadib ayaa waxaan leeyahay waxaan tegayaa move tool-kayga kadib saasaan soo yardurkinayaa. halkan baan hoos dhiganaya. markaan halkaa hoos dhigto ayaa waxaan samaynayaa inaan in yar saa yara durkiyo. kadib aan koonahan intaan saa u tago marka uu line-ka yar saa igu toosay cursor-ka intaan shift qabto inaan saa usoo yareeyo. aan kan kalena tago aan ayar saa usoo yareeyo. kadib aan check idhaahdo aan ayar stroke-ga iska saaro. haddii aad halkan arkaysto stroke-ga aan nan idhaahdo aan color keliya ka dhigto. saa markaan ka dhigo waxaan samaynayaa inaan kooxayga soo qaato aan mid halkaa dhigo midna halkaa dhigo. kadib waxay hadhay inaan vst qoro. waxaan samaynayaa inaan tag soo doorto kadib aan halkan dhigto aan vs halkaa ku qoro. vs markaan qoro kadib waxaan samaynayaa inaan farta yara bedelo aan farta iska yara qurxiyo. markaa farta aad isleedahay fartaasaa ku qurux badan ayaad ka dhiganaysaa ayaa computerkaaga kugu jirta. saasaan u yaroodayaa. markaan check idhaahdo kadib waxaan samaynayaa haddana inaan qorto taariikhdii. control j intaan idhaahdo kadib ayaan samaynaya inaan taariikhdii qorto. waxaan qoranayaa 19 abriil 2022. kadib control a baan leeyahay. saasaan ku daynayaa. waxaan samaynayaa inaan farta bedelo aan halkan tago aan doorto fartii aan ku sameeyay markii hore bebas taasaan dooranayaa. kadib check baan leeyahay. waxaan samaynayaa inaan saa yareeyo aan saa soo qaado aan halkan dhigo. aaroyadaad markaa ku yara adjust garaysanaysaa. dhaqdhaqaajinta faraha badan ma fiicna mouse-ku aarowga kaga fiican computerka. kadib control waxaan leeyahay control j. kadib waxaan samaynayaa inaan saa hoos dhigo kadib aan halkaa ku qoro waqtigii ay soo gelisay 10 pm. kadib ayaan check leeyahay. kadib waxaan samaynayaa inaan tan bedelo aan doorto aan halkan tagas kadib aan farta colorkeeda taa ka dhigo kadib aan okay idhaahdo. markaan intaas sameeyo waxa kale ay hadhay inaan halkaa 3 lead soo gashado oo qurxina iyagu. check baan leeyahay. kadib stroke-gan iska saarayaa.
stroke markaan sidaas ka saaro waxaan sameynaya inaan kan kala koobiyo Ctrl J baan leeyahay Ctrl J markaan dhacdan saa yara durkinaya markaan yar saa yara durkiyo haddana Ctrl J leeyahay saasaan yara durkinaya kadib check baan leeyahay markaa saddex xilliyeed waxaan sameynaa ka sare ka dhexe colorkiisa aan ka dhigto taan halkan tago double click raado aan colorka ka dhigto ka kadib okay baan leeyahay check baan leeyahay marka waxay hadhay background-kan cadaanka ah inaan soo gashado ku kan ciyaartaygu jira oo aan halkan ka soo qaato aan halkan keensado aan sidaa u dhigto kadib aan leekeysiiyo right click baan leeyahay inta Ctrl T baan leeyahay right click baan leeyahay flip hor vertical baan leeyahay check baan leeyahay markaa kor baan yar qaadayaa halkaasaan dhigayaa kadib saasaan leeyahay waxaan sameynayaa inaan u hooseysiiyo isaga background-ka cadun inaan ka sarreysiiyo xaggoos halkaas ma dhigo marka design-keeni qaabkaasuu noqonayaa saasaad u sameynaysaa design-keeni cusub ee maanta fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb waxaan matchka aan u sameeyay Liverpool oo kaliya waxa weeyaan in aad adiguna Man United isku daydo aad Man United soo sameyso kadib aad soo dirto qaabka weeyaan aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.